dabayaaqada bishii sagaalaad ee isla sanadkani aynu ku guda jirnay 2019 waxa qaar kamid ah wadamada caalamka ka dhacay dibadbaxyo ay shacabku ku dalbanayaan in wax laga qabto isbedelka cimilada adduunka. haddaba Somaliland ma ka jirtaa isbedel cimilo mise kama jirto? si aan xog arintaasi ku saabsan u helo waxaan su'aashaasi weydiiyay agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Cabdiqani Yuusuf Galayd. runtii aynu eegno isbedelka cimiladu waa wax cusub oo runtii waxa weeyaan beecada ilaahay inoo abuuray ayaa wax iska bedeleen sidii marka wax weyn ay ahaan jirtay. taana waxaynu oran karnaa waxa sababay oo aynu sabab uga dhigi karnaa bini aadamku waxyaalahan uu adduunka ku korsameynayo ficilada bini aadamku sameeynayo ee marka waxa weeyaan horumar kale ee marka waxa weeyaan wax ay iyagu dhulka ka dul qabanayaan leh ayaa waxay sababeen pollution kaas marka waxa weeyaan iyo uumiga iyo marka waxa weeyaan ay warshadaha waxa dhamaantood ay sameynayaan ayaa marka waxay kor u kaceen marka waxay gaareen ozone layer-kii bay gaareen dabeedna gibilkii bay wax yeeleen inaga sareeyay kaasoo ah mid ilaahay inoo sameeyay oo nature ah. taa marka waxa weeyaan ay dhacday ayaa wax la dareemay isbedel marka waxaan ka warqabnaa deegaanada Somaliland malaha warshado fara badan oo wax soo saar oo qaac hawada gelin kara kaasoo wax yeelin gaarsiin kara ozone layer-ka ama si gibilka hawada inagu xeeran. taa bedelkeeda maxaa sababi kara isbedelka cimilada ee deegaanada Somaliland mar haddaan jirin warshadaha wax soo saarka? runtii waxa jirta isbedelka dunida ka dhacay ayuunba inaga waa run warshado badan ma lihin adduunyada inta badan ganaaxa laga qaado ama pollution-ka geystana kama mid yihiin Afrikada inteeda badan xataa ka mid maaha. Afrikada inuu ka mid nahay ama geeska Afrika inuu ka mid nahay kuwa dunida pollution-ka faraha badan la ogeysta ka mid maaha. laakiin waxa jirta kuwa kale wixii ay geysteen ayaa Somaliland saameyn marka waxa weeyaan ku yeelatay. runtii waxa weeyaan saameyntina waxay noqotay wax marka la dareemi karo maanta Somaliland oo sanawaadkii ugu dambeeyay ama sanadihii ugu dambeeyay si aynu hadaba isbedelka u dareeno ka xafiis ahaan anagu waxaan ururinaa xogta cimilada sanad walba isbedesho ayaan maalinle u ururinaa goobaha qaarkood saacad baa loo ururiyaa oo looga shaqeeyaa xogtaasaanu marka waxa weeyaan dadka loo hayaa dalkana loo hayaa mustaqbalka si loola socdo bal waxa marka shalay jiray waxa maanta socda wixii hore waxay kaga duwan yihiin si ikhtirac loo raaco. noo sheegtay inaad sameyseen xog ururin tan iyo intii ay jirtay waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha iyo la hayo markaa xogihii Somaliland deegaanada Somaliland guud ahaan isbedelka cimilada ee ka dhacay. bal hadda waxaad ka warantaa markaan u eegno sanadihii sagaashamaadkii iyo sanadahan aynu ku jirnay ee 2000 ilaa 2019 isbedel intee leeg baa dhacay baa la oran karaa iyo cimilada mar haddii aad xogtaasi ururiseen? falilahi alxamdu runtii isbedel runtii waxa weeyaan la dareemi karo oo waaweyn iyo kuwa yaryarba runtii waxa weeyaan way jiraan. tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano sanadahan u dambeeyay Somaliland waxaad moodaysaa inay abaaruhu kusoo farabateen oo abaaro nagu soo noqnoqonaya oo inagoo sanadkii hore abaar ka cabanaynay sanadkana abaar sanadkii xiga roob yaraan. waxa laga yaabaa Somaliland roobkii wada heli jiray inaanu si baahsan dalkii u wada helin ee si googooso uu u doo. waxa laga yaabaa daruurihii jiray marka waxa weeyaan bariga hore roobka aynu ka heli jirnay oo ilaahay daruuraha noocyo kala duwan oo roobka kala badan waxa weeyaan uu noo sameeyay inaanay daruuraha noocooda jirin. waxa laga yaabaa dabaylihii inay wax iska bedeleen oo iyaga laftarkoodii roobkii waqtigii uu di'i jiray inuu ka dib dhaco ama ka soo hore dhaco ama waqtigii ka hor aanu dhamaan jirin waxa weeyaan ka hor uu dhamaado oo la waayo. waxaas oo dhan runtii waxa weeyaan aynu aragnay Somaliland hadda roobkii guga ee sanadkii dhawaad inoo da'ay waxaanu filaynaa bishii Abriil haddana roobku Abriil waxaanu helay roob bilow normal ah haddana majority roobku wuxuu da'ay bishii May iyo June buu da'ay. agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa hoosta ka xariiqay isbedelka cimilada Somaliland ay sababeen xaalufinta dhirta. waqtiga kulaylaha dhirtu waxay sii deysaa maalintii waadiga arko marka qorraxdu ku qabato dad geed hoosta ka gasho waxa weeyaan qabow baad dareemaysaa. gaarigaaga ay siga dad furato oo oksijiin oo kale oksijiin bay sii deysaa maalintii environment-ka ka sii deyn jirto oo dhan. dabeedna waxay ka qayb qaadan jirtay kulaylkan dhacay inay hoos u dhigto dhirtu roobka inay soo jiidato. waxay sameynaysay habeenkii oo kale marka uu qabowgu dhacayo saayidka ahi haddaad meel kayn la seexato ama meel bannaan seexato
inkastay carbon tahay haddana yelkada maxaa dareemaysaa kulayl inay sii dayso heat habeenkiina markaa ay sii dayso dabeedna uu ka qayb qaato inay qabowgii faraha badnaa ee zaayidka ahaa inay marka waxa weeyaan mar walba normalize garayso ama xaalad caadi ay kusoo celiso labadii jeerba. runtii sanadahan u dambeeyey dhulkeena waxaa ku socday xaaluf dhirtii geedkii hoosena runtii waxa weeyaan cagtaa lagula tegay oo waa la baabi'iyey overgrace baa ku dhacay xooli baa aada u daaqay oo waxa weeyaan looma meeldayn ta kale dhacday waxa weeye runtii geedkii dhexena waa la jaray kii sarena waa la gubay dhulkii markaa wuxuu noqday dahaadh bilaa dahaadh buu noqday bilaa kofr wax markaa resistana ma yeelanayo kulaylkiina iskama celinayo qabowgiina iskama celinayo wuxuu noqday madax bilaatima ah oo kale. haddaba si aan faahfaahin uga helo heerka ay gaadhsiisan tahay dhirta la jaro ee loo isticmaalo dhuxusha ayaa waxaan tegay mid ka mid a deegaanada Somaliland oo dadka deegaankaasi ay ku hawlan yihiin inay dhirta u bedelaan dhuxul diyaara in wax lagu karsado isla markaana loo suuq geeyo magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. maamulka deegaankaasi ayaa iga codsaday inaan qariyo jihada ay kaga taalo deegaanada Somaliland iyo magaca deegaankaasiba cabsi ay ka qabaan dawladda awgeed iimanay suurtagelin inaan wax faahfaahin ka helo dadka dhuxusha shida taabedelkeeda waxay ogolaadeen inaan muuqaal ka duub geeda ay soo gooyeen isla markaana u diyaara inay dhuxul ka sameeyaan iyo godad ay ka sii muuqdaan raadka dhuxul ay shideen oo ay sheegeen inay dhawaan u suuq geeyeen magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. geedahan idin muuqda hadda waxay diyaar u yihiin in la shido isla markaasina loo isticmaalo in laga sameeyo dhuxusha cuntada lagu karsado balse geedahani ayaa horay u ahaa kuwa nool. geedahan ayaa diyaar u ah iyagu in laga sameeyo dhuxul isla markaasina loo isticmaalo in cuntooyinka lagu karsado. waa mid ka mid ah xarumaha lagu iibiyo dhuxusha magaalada Hargeysa. isticmaalka dhuxusha ayaa taariikh iyo sooyaal dheer ku leh bulshada Soomaalida dhexdeeda. si aan wax uga ogaano isticmaalka dhuxusha iyo heerka ay gaadhsiisan tahay waxaan wax ka weydiinay Axmed Yuusuf oo ka mid ah dadyoga iyagu ka shaqeysta iibinta dhuxusha. muddo intee la ku jirtay hawshan iibinta dhuxusha? inta wallah in badan shaqafka iyo gadbadaha caadiga keebaa suuq badan labada labada waxa suuq badan haafafka suuq badan waxa jiray marka shirkado iyagu ololeeya in laga tago laga guuro dhuxusha la gudbo dhinaca isticmaalka gaasta cuntooyinka lagu karsado waxa qabada mid ku keeneen shirkadaha ka bilaabmay halka waxa qaban ugu meekin dawladdu waxay yiraahdaan hal iska daayo hana laga gudbo isticmaalka dhuxusha iyo iibinteeda marka tag dawladda iyaduna dhibaatooyina kama rajaynta lag bad ka qabtaa in isticmaalka dhuxusha uu sii dheeraado muddooyin kale la isticmaalo. wallahi niyo warsayn wallahi daweyn ma araguri waxa caqabado iga hor yimaado xagga dhuxusha ma arag rajo fiican baad ka qabtaa in muddo dheer la sii isticmaalo dhuxusha xagga jawaanadoo kale maxaad haysan gadbadahan oo kale labada 120 haddii dollar loo bedelo waxay noqonaysaa ilaa adigu $5 waxa weeyaan ilaa $5 bay noqonaysaa wax yar la waxa ka dhiman dad badan way ka iibsadeen aad baad mahadsantahay fiican baa laga soo kaga mahadnaqnaa agaasimaha waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ayaa walaac ka muujiyay isticmaalka dhuxusha oo uu sheegay inay sababto xaalufinta deegaanka. haddii la yiraahdo dhuxul hal shito dhulka hal gubo maaliyo intaas ku nootano geed baa la gubayaa waxa weeye bedelkoodina lama beerayo waxa weeye marka dhulku banaanaya ama waynu aragnaa dhulku inuu iska banaan yahay oo dhirtii dhamaatay oo tii yareereed la gooynayo oo tii kale magaranaysa inta laga sii daba tagayo oo aan waxba la beerayn oo magaranaysa arintaasi waa waxyaalaha dhibka inagu hayo weey. Somaliland ma laha warshado wax soo saar hawada ku sii daaya qiiq wasakheeya balse taa bedelkeeda qiiqaan xaddiga lahayn ee ka soo baxa baabuurta gabowday ama se muddada dheer la isticmaalayay ayaa iyagu halis ku hayo wasakhowga deegaanka walina dawladdu uma hayso qalab lagu cabiro ama se lagu xadido xaddiga qiiqa ee la ogol yahay inay baabuurta hawada ku sii daayaan. wuxuu sii daynaa gaarigaasi hawa wasakha oo caafimaadka dadka waxyeelaysa adduunka wax standard jira lagu cabiro annaga hadda wali waa naga dhiman yihiin waxa jira mid lagu cabiro sanqadha qofku inta ka badan magaranaysa qofku wuxuu xaq u leeyahay inta ka badan inaysan dhagihiisa ku dhicin qofku wuxuu xaq u leeyahay hawada cabir kale caafimaadkiisa wax ka badan wax yeelayaan
marka standardskaasi waa naga maqan yihiin sharcigana waa noogu yaaliin agaasimaha waaxda ilaalinta deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ayaa aaminsan in deegaanku ku badbaadi karo isticmaalka gaasta cuntada lagu karsado gaaska la shito wadanka keena kaalin weyn bay kaga jiraan ilaalinta deegaanka iyo dhirta inay magaranaysaa dhirta la daayo ama ilaa la gaadho dhirta ma magaranaysaa in laga kaaftoomo sababta waxa weeye magaalooyinka waaweyn oo dhan hadda wax laga shitaa gaaskaas laga shitaa wasaaraduna waxay ku dadaashay in laga cashuur dhaaf lagu keeno halkani waa xarunta shirkadda Unigas oo ah mid kamid ah shirkadaha bixiya gaasta cuntada lagu karsado waxaan mar dhowna wax ka weydiin doonaa mid kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda Unigas adeegyada ay u bixiyaan bulshada iyo sidoo kale sida ay bulshadu isticmaalaan gaasta kala duwan iyo kaalinta ay ka qaadan karto ka hortagga xaalufinta deegaanka Axmed Yuusuf Tacaale waa madaxa suuqgeynta ee shirkadda Unigas oo kamid ah shirkadaha dalka keena gaasta cuntada lagu karsado waxaanu iga waramay fahanka ay bulshadu ka haystaan isticmaalka gaasta cuntada lagu karsado doorta wixii la bartaaba balele baa la yidhi oo dadku dhuxusha in badan bay ku soo yaqaaneenoo dabeedna waa la dacaadeeyey gaasta markay timi cidda dacaadda u badan fidisana waxaa ninkii dhuxusha iibinayey iyo ninkii geedka dilayay ee gubayay ee la dagaalamayay deegaanka kiibaa wuxuu yidhi bahashaas way qaraxdaa haddii warkaas run yahayna jaynaha haddii dunida ugu badan baa dhammaan lahay oo gaas waxaan ahayn ma shito warkaasuna war jira maaha dadka badankiisu iminka wuu ogaaday runtii aad baa dhuxushii markaa looga soo yaraanayaa si tadriijiyan maalinba maalinta ka dambaysana way yaraanaysaa dadkii dhuxusha shidanayay ee gaas loo soo guurayay waxaan ka warqabnaa in keymo badan oo kamid ah dhirtii dabiiciga ahayd ee ku dhaqnayd deegaanada Somaliland in la gubayo loo isticmaalay dhuxul loo isticmaalo in wax lagu karsado marka kaalin intee leeg bay ka qaadan kartaa baad isleedahay shirkadda Unigas oo kamid ah shirkadaha bixiya adeegyada gaasta cuntada lagu karsado kaalin intee leeg bay ka qaadanaysaa ilaalinta deegaanka waxaan isleeyahay kaalinta ugu horeysa ee ugu muhiimsan waxa weeyaan shirkadaha gaaska bixiya ayay noqonaysaa oo aan anaguna kow ka nahay waxaan isleeyahay marka loo xisaabiyo qofba intee buu ka qaatay ka ugu sarreeya priority ugu sarreeya inay tahay shirkadaha gaasta shirkadaha bixiya adeegyada gaasta ee cuntada lagu karsado diyaar ma u yihiin inay sameeyaan dhir beeritaan lagaga hortagayo ama lagu kabayo ama bedelkeeda laga dhigayo dhirtii hore ee la gubay ee xaalufinta loo geystay qorshaas ma ugu jira shirkadaha gaaska contributionka wasaaradda deegaanka oo aada u shaqeysa oo aan aada ugu mahadnaqayno siday uga howl qaadato contribution wax alaale wixii naga qabta ee shirkadahan diyaar baan u nahay دكتور خضر إبراهيم حاج محمد وأقاسمها عسبتالك عروت محمد آدم الشيخ مقالة هرقيسة وحنا ويديي سامينتا يسبدل كعملادو كل هذاي كوريتان كعرورتا يحنون ذا يهور سيد كرتو يسبدل كعملادو وحويان global magaranaysa climate change waa adduunka oo dhan inaga kaliya ma haweyna soo gaaraya xitaa hadii aynaan maxaan ku raay wadankeena aan lahayn warshadaha iyo waxyaabahan qiiqa keenaya chemicals ha noqoto greenhouse ka waxna yiraahdaan ha noqoto dadku mar walba de ka mudaharaadayna ma ka dacwoonayaan ay arkeen isbedelka waad aragtaano kuleel xad daaf ah oo aan jiri jirin ayaa jira qabow isagana aan jiri jirin ayaa jira oo imanaya xilligii qabowga biyihii oo magaranaysa adduunyadii ku yaraanaya ayaa jira meelaha qaarna ku badanaya rooba baan xad lahayn oo daaya iyagana ayaa imanaya waxyaabahaas oo dhammi waxay keenayaan environmentkii ama inay saamayso xagga caruurta caafimaadka haddaynu usoo noqono waxay sheegayaan researches la sameeyey oo magaranaysa laga sameeyey dhinaca Mareykanka iyo Yurubtaba in koritaankooda aad wax u yeelanayo isbedelkan hawada ee dhacay oo caruurtii sida caadiga ahayd u kori jirtaan oo koreen inay ku bateen cudurradan waliba ay yiraahdaan upper respiratory waxa afka Ingiriiska la yiraahdo oo cudurradan ku dhaca xagga sanbabada nooc kastaba ha noqdaan infections kala duwan in lagu arkay caruurtii oo frequent anaga halkan Maxamed Aadan Sheekh ahaan caruurta waxaad arkaysaa ilmo yaro markaanu liiska gelino ee maalinta dambe uu soo noqdo haddana aanu eegno uu imanaya same cudur uu imanaya oo ah
ama bronchitis ha noqoto ama pneumonia ha noqoto infection continuously ah u imanaya oo awalna aan dee horu wuxuu jiri jiray ahayn ee caruurta seasonal maruu ku dhici jiray hargab la odhan jiray baa yimaada maxaan ku yiraahday roob da'ay sidaas oo kale ku yimid laakiin waxay noqdeen wax soo noqnoqonaya waxa kaloo kamid ah iyagana waxyaabahan ku aragnay skinka ilmaha oo kale caruurta oonan hore u arki jirin markii inta aan joogay ama dadka markaan ka wareysano caruur infection disease waxaan leeyahay skin disease badan oo ciyaalkii ku imanaya kana waxa ugu badan waxay ahaan jirtay waxaan la yiraahdo qawadka ama maxaan ku dhahay scabiyaha waxa la yiraahdo isniraamiska ayaa la arki jiray iyaguna markiiba kaasina waxay ka dhashaan had iyo jeer uskaga iyo waxaas caruur aan la nadiifin laakiin imika waxaanu aragnaa skinkooda caruurtii cudurro ku dhacaya agaasimaha waaxda dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Xasan Cabdi ayaa isagu aaminsan in isbedelka cimilada wax lagaga qaban karo dhalinyarada oo fahamta inay yihiin cudurada wax ka qaban karta isbedelka cimilada laba shay baan soo karaa malaha waxba laga qaban karaa mid waa in dhalinyartu horta marka hore fahanto cudurada qura ee wax bedeli karta hadday nadaafad noqoto hadday climate change noqoto hadday in dhir la beero oo wax qura climate change bedeli kara ay tahay dhir badan la beeraa ay tahay waa dhalinyarta qarshay badan oo kale dhalinyarta hadday noqoto aroosiya hadday noqoto xaflado qalajinba meelo kale kaga baxa hadday dhinaca deegaanka iyo dhirta aynu gelin lahayn waxyaabo badan baa iska bedelnaa marka waxaan soo jeedin lahaa xaqiiqduna ay tahay in horta dhalinyartu awoodda saarto si dhir beeris ay sameeyaan wasaaradda ka dhalinyarada waxaan isku daynaa inaan sameeyno maalin qaran oo ah maanta dhir beerista dhalinyarada Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Faarax waa mid kamid ah culimada waaweyn ee reer Soomaaliland sidoo kalena ka howlgala wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Faarax ayaa ku booqday masjid uu imaam ka yahay oo ku yaala magaalada Hargeysa Sheekh ayaan hordhigay inuu faahfaahin ka bixiyo kaalinta ay diinta Islaamku ka qaadato dhir beerista iyo ilaalinta deegaanka qadarteeda wada dhir beeristu waxay diiniga noqonaysaa shay muhiim ah oo diintu ina farayso sunnaha nabiguna ina farayo sallallahu alayhi wasallam rasuulku ku tilmaamay xadiis saxiixayn ayuu rasuulku lahaa haddii gacantaada ay ku jiraan midho in aad beerto aad damacsan tahay qiyaamihii inuu dhowaado inuu dhaco inta aanu dhicin in aad beertaa fadli badan buuri inta aan qiyaamuhu dhicin inaad midhihii kugu jira gacanta aad beerto ayaa axsana oo inaad beerta ay munaasab tahay buuri hasaa darteed waxaynu faraynaa ummadda deegaanka ilaalintiisa waa munaasab waxa weye beeristiisa waa munaasab ilaalintiisa waa munaasab ilaalin wuxuu inoo tilmaamay in la fasaadinta wax fasaad la in laga digtoonaado hadday goynta dhirta tahay hadday xumaan kala tahay ilaah baa qaala tacaala walaa tufsidu bacda islaaxa dhulka ha fasaadinin ilaah baa leh intuu ilaahay wanaajiye ka bacdigeed buuri oo ilaahay beerista uu beeray iyo nabaadka uu soo bixiyey iyo raxmaadka uu daasiiyey iyo dhulka quraxaysay ayaa lagu leeyahay ha fasaadinina oo labada jaristan dhulka lafteedu fasaaday soo galaysaa dhulka fasaadintiisay soo galaysaa ama macaasi lagu fasaadiyo ama dhirta hal goynta lagu fasaadiye iyadana taan ilaahay inooga digay in wax la fasaadiyo si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in deegaanada Soomaaliland sanadihii u dambeeyay ay ka dhaceen abaaro geystay khasaare naf iyo maalba leh duufaano aan hore looga baran Soomaaliland oo ku dhuftay qaar ka mid ah gobolada galbeedka Soomaaliland iyo roobabka oo kadib dhacay xilliyadoodii arrintani ayaa dadka ka faalooda arrimaha deegaanku waxay ku tilmaameen isbeddello cimilo oo ka dhacay deegaanada Soomaaliland